kulanti wacan daawadayaasheena Facebooka ku soo dhawaada kulan gaar ah oo madaxweyne Farmaajo uu idinla yeelanayo oo su'aalihiina ku soo weydiinaysaan waxaanu idinka ballan qaadnay in uu toos noqon doono kulankan wuxuu noqonayaa mid sii duuban balse su'aalihiina ayaynu madaxweynaha hor dhigi doonaa waa mahadsantahay inaad naga ogolaatay inaad dadka la hadasho sidee dareemaya inaad shacabka la hadasho si toos ayuu ku daawanaya su'aalahan ay ka jawaabayaan waa ku faraxsan waxaan ka bilaabaynaa Cabdigeesi oo ku sugan Boorama wuxuu leeyahay madaxweyne Farmaajo waxaan weydiin lahaa maxaa idinkaga qorshaysan wadahadaladii Somaliland mise jirtaa inaad gudaha dalka ku heshiinaysaan بسم الله الرحمن الرحيم عبد الجيسي وكما تسيني سؤال شيسا قيمة بدن إن الصومالي فنتي ويسوبها هنتهاي وحنا قد والله وحنا أمسنا هاي إن دب بلاب إنه أما دب سوء علني إنه وهذا الذي لماذا محن كورة هذا لنع إنه استفع عن إن دب سوء علني إنه أنه فنتي أمسن إن لماذا لنع بقى عن نجت هاي داعت إن dadkeena aan mas'uulka ka nahay oo waalaha ah sidii aan mustaqbalkooda aan uga shaqeyn lahayn maxaa yeelay dalkan Soomaaliya waa dal runtii dadkiisu ay walaalo yihiin oo aan iswada leenahay oo waxba lagu kala duwanayn kala maqnaashaheenu waxay noo tahay runtii dib u dhac waa taas dhalinyaradu ay badda kulligood ay maaragtay nafta ka raadinayaan waxaan aaminsanahay haddii dalkaani uu isu yimaado oo dadka Soomaaliyeed oo waalaha ah ay maxaan ku raadin isu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u daneeyaan caruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u daneeyaan iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la isugu imaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara isu dhawaasho maxamed caalin oo jooga magaalada Banidhiig ee ka tirsan gobolka Togdheer wuu ku salaamayaa saddex su'aal oo ku weydiiyay mid ka mid ah soo qaadan doonaa wuxuu leeyahay waxaan ognahay kooxda shabaab inaad awood ku maquulin weydeen marka wada hadal ma ku dayday shabaab waxaan siinay cafis dhowr jeer waan ugu baaqnay inay hub ka dhigaan oo ay ka tagaan runtii waxa ay ku dhex jiraan oo xasuuqa iyo dhibaatada ay dhibaateynayaan ummadooda ay ka tanaasulaan waana wadeennaa sidii aan ula hadli lahayn sidii aan u soo celin lahayn maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inay wiilasheena yihiin oo la khalday waxaan aaminsanahay qoriga iyo xabadda inay ka fiican tahay dadkan dad caruurteena ah weeye inay iska dhigaan maxaan ku raahdaa hubka ay haystaan oo ay ku leynayaan ama ay ku xasuuqayaan dadkooda ama ay ku burin hadday noo yimaadaan waxaan ugu baaqnay inaan siinayno hooy inaan deganaasho iyo mustaqbal fiican aan siinayno hadduu ilaah yidhaahdo ugaas xasan bashiir saciid oo jooga gaalkacyo wuxuu ku weydiinayaa maxaa kaaga qorshaysan qaraxyada markasta ka dhaca magaalada Muqdisho iyo dilalka qorshaysan ee loo geysto mas'uuliyiinta dawladda waa ku mahadsan yahay ugaas xasan su'aashiisa hawshaasi runtii muddo dheer ayaan ka shaqeynaynay ilaahay wuxuu nagu guuleeyey markay ugu sahlan tahay 3 bilood la soo dhaafay in baabuur qarxiya xamar aan ka ilaalinay waxaan rajaynaynaa inaan sii adkeenno amniga dadkeena inaan sii adkeenno iyo magaalada Muqdisho annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wada shaqeyntooda Cabdisalaam Xuseen magaalada Muqdisho jooga wuxuu ku weydiinayaa mudane madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan kala qaybsanaanta magaalada Muqdisho iyada oo dawladdu ay ka taliso laga bilaabo wadada wadnaha ilaa ex control balcad bulshada ku nool ma haystaan wax adeeg dawladeed ah xitaa amni fiican gudoomiyaasha degmooyinka goobahaas maxaad u sheegi lahayd waxaan leeyahay dawladdan hadda waxay jirtaa hal sano waxyaabaha ay ballan qaaday waxaa ka mid ah inay gaarsiiso adeega shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtiina hadda waxaan galnay qaabkii hadda waxaan galnay implementationkii ama dhaqangelintii wixii aan qorsheynaynay sanadkii hadda ahaa hadduu eebba yiraahdo waxaan gaarsiinaynaa adeega
bulshada sida ugu dhaqsiyaha badan hadday noqoto iskuullo waxbarasho khaasatan farsamooyinka iyo technology-ga oo free lagu dhigto hadday noqoto rugagii caafimaadka hadday noqoto iyo hadday noqoto biyo caafimaad ah iyo jidadka inaan dib u dhisno amnigan aan si fiican soo celin laakiin iyada nafteeda waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan hawshaas ayna bixiyaan canshuuraha shacabka hadday bixiyaan waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan oo aan hadda awooddeeda aanan lahayn oo laga yaabo inaan u hoos fadhino ama aan u daba fadhino dowlado shisheeye inay naga kabaan inaan ka maarmi karno haddii shacabku ay iyagu qayb ka noqdaan bixinta canshuuraadka waagaag xidig maxamed suureeye oo jooga Minneapolis waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaan weydiinayaa iibista Cabdikariin Qalbi Dhagax muxuu madaxweynuhu ka ogyahay su-aashaasi runtii waa su-aal muhiim ah waxaan ognahay in baarlamaanka Soomaaliyeed golaha shacabku ay arrintaas ay ku sameeyeen debate ay aad uga hadleen ay ka soo saareen documentation ayna u codeeyeen maxaa yeelay iyagu waxa weeye waa hay'adda ugu sarreysa ee sharci dejinta markay codeeyeenna waxay gaareen go-aan waxaan aaminsanahay go-aankaas inuu yahay kama dambaysa maxamed amiin oo jarmalka jooga wuxuu leeyahay madaxweynaha waa salaamayaa wax uu ku weydiinayaa waa maxay caqabadaha hortaagan ciidan midaysan oo Soomaaliyeed oo hal meel ka amar qaata caqabadahaasi waxaan bilownay inaan ka shaqeyno ciidanka inaan isku dhafno oo aan isu keenno oo aan tababar cusub gelino oo aan siino agabkay u baahan yihiin waxaan bilownay inaan siino mushaharaadka oo hadda intii aan xukuumaddaani jirtay ama dowladdaani jirtay aan bixinay ciidamada annaga budgetkeena miisaaniyadeenna maxaan ku raahdaa qaybta ka ah taasna waxay keenaysaa intaas in ciidamadaasi ay noqdaan ciidamo tayo leh si ay uga hortagaan al-shabaab cabdiraxmaan warsame cilmi muqdisho jooga wuxuu ku weydiinayaa dhowr su-aal balse waxaan ka soo qaadanaynaa waxa uu leeyahay madaxweynuhu markii uu kambeynka ku jiray waxa uu ballan qaaday in aysan jiri doonin waddo xiran waddooyinka magaalada muqdisho ka hadlaya maxaa ku dhacay cabdikariin waxaan leeyahay dowladdu dadaal waxay ugu jirtaa inay ilaaliso ammaanka magaalada muqdisho ilaahay baa nafta ilaaliya inaan xaqiijinno dadka Soomaaliyeed ee magaalada ka shaqeysta inay xaafadooda ugu noqdaan si nabad ah marka in la kala doorto xoogaa yaroo dhib ah iyo jid xirnaansho iyo in la kala doorto qarax joogto ah insha Allah hadduu ilaahay raado iyada naftigeeda waa ka gudbaynaa waxaanan xaqiijinaynaa in magaaladu isku furanto ammaankeedana uu ku soo noqdo hadduu eebba yiraahdo maxamed khaliif waxa uu oo jooga maraykanka waxa uu ku leeyahay firfircooniya ka muuqatay inta aadan madaxweyne noqonin xaggee ka baxday madaxweynaha iyo prime ministerku waxay kala leeyihiin laba rool iyo kala leeyihiin roolka prime ministerku waa ninka hawsha xukuumadda iyo shaqada iyo fulinta iska leh meesha madaxweynaha laga rabo inuu lahaado visionka korna ka fiiriyo xaaladda sidee tahay uuna ka odayeeyo hawsha marka waxaan aaminsanahay inaan keenay ra-iisul wasaare wanaagsan oo shaqadiisa ka adag sida hadda aan arkana in ay hayaan xukuumadda hawl wanaagsan aada umahadsan tahay waqtigaada waa kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha BBC-da ee su-aalaha kusoo weydiiyey oo aada fursadda siisayna iyagana sidoo kale mahadooda waan kusoo gaarsiinaynaa aada umahadsan waa mahadsantahay daawadayaal aad ayaad ugu mahadsan tihiin la socoshada barnaamijkan waxaad dib uga daawan doontaan ama aad ka daawan kartaan barta Facebooka ay BBC Soomaali ku leedahay waan idinkaga mahad celinaynaa la socoshada war fiican waay wacan daawadayaasheena Facebooka kusoo dhawaada kulan gaar kulanti wacan daawadayaasheena Facebooka kusoo dhawaada kulan gaar ah oo madaxweyne farmaajo uu idinla yeelanayo oo su-aalihiina kusoo weydiinaysaan waxaanu idinka ballan qaadnay in uu toos noqon doono kulankan wuxuu noqonayaa mid sii duuban balse su-aalihiina ayaynu madaxweynaha hor dhigi doonaa waa mahadsantahay inaad naga ogolaatay
inaad dadka la hadasho waa dhawahay sidee dareemaya inaad shacabka la hadasho si toos ayaga ku daawanaayo su-aalahan ay ka jawaabayaan waa ku faraxsan waxaan ka bilaabaynaa cabdigeesi oo ku sugan boorama wuxuu leeyahay madaxweyne farmaajo waxaan weydiin lahaa maxaa idinkaga qorshaysan wadahadaladii somalilan mise jirtaa inaad gudaha dalka ku heshiinaysaan bismi illahi raxmaan raxiim cabdigeesay waa ku mahadsan yahay su-aashiisa qiimaha badan soomaali runtii waa isu baahan tahay waxaan nahay dad waala ah waxaan aaminsanahay inaan dib u bilaabayno ama dib u soo celinayno wadahadaladii labada maxaan ku rahdaa dhinac inaan si fiican inaan dib u soo celinayno annagoo runtii aaminsan inaan labadayna dhinacba aan naga tahay daacad in dadkeenna aan mas-uulka ka nahay oo waalaha ah sidii aan mustaqbalkooda aan uga shaqayn lahayn maxaa yeelay dalkan soomaaliya waa dal runtii dadkiisu ay walaalo yihiin oo aan iswada leenahay oo waxba lagu kala duwanayn kala maqnaashaheennu waxay noo tahay runtii dib u dhac waa taas dhalinyaradu ay badda kulligood ay maaragtay nafta ka raadinayaano waxaan aaminsanahay haddii dalkaani uu isu yimaado oo dadka soomaaliyeed oo waalaha ah ay maxaan ku rahda isu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u daneeyaan caruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u daneeyaan iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la isugu imaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara isu dhawaasho maxamed caalin oo jooga magaalada bani dhiig ee ka tirsan gobolka togdheer wuu ku salaamayaa 3 su-aalood wuu ku weydiiyey mid ka mid aan soo qaadan doonaa wuxuu leeyahay waxaan ognahay kooxda shabaab inaad awood ku maquulin weydeen marka wadahadal ma ku dayday shabaab waxaan siinay cafis dhowr jeer oo aan ugu baaqnay inay hub ka dhigaan oo ay ka tagaan runtii waxa ay ku dhex jiraan oo xasuuqa iyo dhibaatada ay dhibaateynayaan ummadooda ay ka tanaasulaan waana wadeennaa sidii aan ula hadli lahayn sidaan usoo celin lahayn maxaa yeele waxaan aaminsannahay inay wiilasheena yihiin oo la khalday waxaan aaminsanahay qoriga iyo xabadda inay ka fiican tahay dadkan dad caruurteena ah weeye inay iska dhigaan maxaan ku rahdaa hubka ay haystaan oo ay ku leynayaan ama ay ku xasuuqayaan dadkooda ama ay ku burburinaayaan hantidooda dadkooda ay ku burburinayaan hadday noo yimaadaan waxaan ugu baaqnay inaan siinayno hooy inaan deganaasho iyo mustaqbal fiican aan siinayno hadduu ilaah yidhaahdo ugaas xasan bashiir saciid oo jooga gaalkacyo wuxuu ku weydiinayaa maxaa kaaga qorshaysan qaraxyada mar kasta ka dhaca magaalada muqdisho iyo dilalka qorshaysan ee loo geysto mas-uuliyiinta dowladda waa ku mahadsan yahay ugaas xasan su-aashiisa hawshaasi runtii muddo dheer ayaan ka shaqaynaynay ilaahay wuxuu nagu guuleeyey markay ugu sahlan tahay 3 bilood lasoo dhaafay in baabuur qarxiya xamar aan ka ilaalinay waxaan rajaynaynaa inaan sii adkeenno amniga dadkeenna inaan sii adkeenno iyo magaalada muqdisho annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed wada shaqayntooda cabdisalaam xuseen magaalada muqdisho joogaa wuxuu ku weydiinayaa mudana madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan kala qaybsanaanta magaalada muqdisho iyada oo dowladdu uun ay ka taliso laga bilaabo wadada wadnaha ilaa ex control balcad bulshada ku nool ma haystaan wax adeeg dowladeed ah xitaa amni fiican guddoomiyaasha degmooyinka goobahaas maxaad u sheegi lahayd waxaan leeyahay dowladdan hadda waxay jirtaa 1 sano waxyaabaha ay ballan qaaday waxaa ka mid ah inay gaarsiiso adeega shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtiina hadda waxaan galnay qaabkii hadda waxaan galnay implementationkii ama dhaqangelintii wixii aan qorsheynaynay sanadkii hadda ahaa hadduu eebba yidhaahdo waxaan gaarsiinaynaa adeega bulshada sida ugu dhaqsiyaha badan hadday noqoto iskuullo waxbarasho khaasatan farsamooyinka iyo technology-ga oo free lagu dhigto hadday noqoto rugagii caafimaadka hadday noqoto iyo hadday noqoto biyo caafimaad ah iyo jidadka inaan dib u dhisno amnigan aan si fiican soo celin laakiin iyada nafteeda waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed
inay qayb ka noqdaan hawshaas ayna bixiyaan canshuuraha shacabku hadday bixiyaan waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan oo aan hadda awooddeeda aanan lahayn oo laga yaabo inaan u hoos fadhino ama aan u daba fadhino dowlado shisheeye inay naga kabaan inaan ka maarmi karno haddii shacabku ay iyagu qayb ka noqdaan bixinta canshuuraadka. waagaag xidig maxamed suureeye oo jooga minneapolis waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaan weydiinayaa dhiibista cabdikariin qalbi dhagax muxuu madaxweynuhu ka ogyahay? su-aashaasi runtii waa su-aal muhiim ah. waxaan ognahay in baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabku ee arrintaas ay ku sameeyeen debate ay aada uga hadleen ay ka soo saareen documentation ayna u codeeyeen maxaa yeelay iyagu waxa weeye waa hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta markay codeeyeenna waxay gaareen go-aan waxaan aaminsanahay go-aankaas inuu yahay kama dambaysa. maxamed amiin oo jarmalka jooga wuxuu leeyahay madaxweynaha waa salaamayaa waxa uu ku weydiinayaa waa maxay caqabadaha hortaagan ciidan midaysan oo soomaaliyeed oo hal meel ka amar qaata? caqabadahaasi waxaan bilownay inaan ka shaqeyno ciidanka inaan isku dhafno oo aan isu keenno oo aan tababar cusub gelinno oo aan siino agabkay u baahan yihiin. waxaan bilownay inaan siino mushaaharaadka oo hadda intii aan xukuumaddaanay jirtay ama dowladdaanay jirtay aan bixinay ciidamada annaga budgetkeenna miisaaniyaddeenna maxaan ku raahdaa qaybta ka ah taasna waxay keenaysaa intaas in ciidamadaasi ay noqdaan ciidamo tayo leh si ay uga hortagaan al-shabaab. cabdiraxmaan warsame cilmi muqdishuu joogaa wuxuu ku weydiinayaa dhowr su-aal balse waxaan ka soo qaadanaynaa waxa uu leeyahay madaxweynuhu markii uu kambeynka ku jiray waxa uu ballan qaaday in aysan jiri doonin waddo xiran waddooyinka magaalada muqdisho ka hadlaya maxaa ku dhacay? cabdikariin waxaan leeyahay dowladdu dadaal waxay ugu jirtaa inay ilaaliso ammaanka magaalada muqdisho. ilaahay baa nafta ilaaliya. inaan xaqiijinno dadka soomaaliyeed ee magaalada ka shaqaysta inay xaafadooda ugu noqdaan si nabad ah. marka in la kala doorto xoogaa yaroo dhib ah iyo jidxirnaansho iyo in la kala doorto qarax joogto ah insha allah hadduu ilaah yihahdo iyada naftigeeda waa ka gudbaynaa. waxaanan xaqiijinaynaa in magaaladu isku furanto ammaankeedana uu kusoo noqdo hadduu eeba yidhaahdo. maxamed khaliif waxa uu oo jooga maraykanka waxa uu ku leeyahay firfircooniya ka muuqatay inta aadan madaxweyne noqonin xaggee ka baxday? madaxweynaha iyo prime ministerku waxay kala leeyihiin laba door laba rool ayay kala leeyihiin. roolka prime ministerku waa ninka hawsha xukuumadda iyo shaqada iyo fulinta iska leh. meesha madaxweynaha laga rabo inuu lahaado visionka korna ka fiiriyo xaaladda sidee tahay uuna ka odayeeyo hawsha. marka waxaan aaminsanahay inaan keenay ra-iisul wasaare wanaagsan oo shaqadiisa ka adag sida haddaan arkana in ay hayaan xukuumadda hawl wanaagsan. aada umahadsan tahay waqtigaada waa kaaga mahad celinaynaa. dhegeystayaasha iyo daawadayaasha b b c da ee su-aalaha kusoo weydiiyey oo aada fursadda siisayna iyagana sidoo kale mahadooda waan kusoo gaarsiinaynaa. aada umahadsan. waa mahadsanta. daawadayaal aad ayaad ugu mahadsan tihiin la socoshada barnaamijkan. waxaad dib uga daawan doontaan ama aad ka daawan kartaan barta facebooka ay b b c soomaaliya ku leedahay. waan idinkaga mahad celinaynaa la socoshada. war fiican waay. kulanti wacan daawadayaasheenna facebooka kusoo dhawaada kulan gaar ah oo madaxweyne farmaajo uu idinla yeelanayo oo su-aalihiina kusoo weydiinaysaan. waxaanu idinka ballan qaadnay in uu toos noqon doono. kulankan wuxuu noqonayaa mid sii duuban balse su-aalihiina ayaynu madaxweynaha hordhigi doonaa. waa mahadsantahay inaad naga ogolaatay inaad dadka la hadasho. waa dhawa. sidee dareemaya inaad shacabka la hadasho si toos ayagu ku daawanayo su-aalahan ay ka jawaabayaan? waa ku faraxsana. waa mahadsantahay. waxaan ka bilaabaynaa cabdigeesi oo ku sugan boorama wuxuu leeyahay madaxweyne farmaajo waxaan weydiin lahaa maxaa idinkaga qorshaysan wadahadaladii somalilan mise jirtaa inaad gudaha dalka ku heshiinaysaan?
بسم الله الرحمن الرحيم عبد الجيسي وكما تسيني سؤال شيسا قيمة بدن إن الصومالي runtii waa isu baahan tahay waxaan dad waala ah waxaan aaminsanahay inaan dib u bilaabayno ama dib u soo celinayno wada hadalladii labada maxaan ku raahdaa dhinac inaan si fiican inaan dib u soo celinayno annagoo runtii aaminsan inaan labada dhinacba aan naga tahay daacad in dadkeena aan mas-uulka ka nahay oo waalaha ah sidii aan mustaqbalkooda aan uga shaqayn lahayn maxaa yeelay dalkan Soomaaliya waa dal runtii dadkiisu ay walaalo yihiin oo aan iswada leenahay oo waxba lagu kala duwanayn kala maqnaashaheenu waxay noo tahay runtii dib u dhac waa taas dhalinyaradu ay badda kulligood ay maaragtay nafta ka raadinayaan waxaan aaminsanahay haddii dalkaani uu isu yimaado oo dadka Soomaaliyeed oo waalaha ah ay maxaan ku raahdaa isu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u daneeyaan caruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u daneeyaan iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la isugu imaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara soo dhawaasho maxamed caalin oo jooga magaalada Balidhiig ee ka tirsan gobolka Togdheer wuu ku salaamayaa saddex su'aalo wuu ku weydiiyey mid ka mid aan soo qaadan doonaa wuxuu leeyahay waxaan ognahay kooxda shabaab inaad awood ku maquulin weydeen marka wada hadal ma ku dayday shabaab waxaan siinay cafis dhowr jeer waan ugu baaqnay inay hub ka dhigaan oo ay ka tagaan runtii waxa ay ku dhex jiraan oo xasuuqa iyo dhibaatada ay dhibaateynayaan ummadooda ay ka tanaasulaan waana wadeennaa sidii aan ula hadli lahayn sidaan u soo celin lahayn maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inay wiilasheena yihiin oo la khalday waxaan aaminsanahay qoriga iyo xabadda inay ka fiican tahay dadkan dad caruurteena ah weeye inay iska dhigaan maxaan ku raahdaa hubka ay haystaan oo ay ku leynayaan ama ay ku xasuuqayaan dadkooda ama ay ku burburinayaan hantidooda dadkooda ay ku burburinayaan hadday noo yimaadaan waxaan ugu baaqnay inaan siinayno hooy inaan deganaasho iyo mustaqbal fiican aan siinayno hadduu ilaah yidhaahdo ugaas xasan bashiir saciid oo jooga gaalkacyo loo geysto mas-uuliyiinta dowladda waa ku mahadsan yahay ugaas xasan su-aashiisa hawshaasi runtii muddo dheer ayaan ka shaqaynaynay ilaahay wuxuu nagu guuleeyey markay ugu sahlan tahay 3 bilood la soo dhaafay in baabuur qarxiya xamar aan ka ilaalinay waxaan rajaynaynaa inaan sii adkeenno amniga dadkeena inaan sii adkeenno iyo magaalada Muqdisho annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wada shaqayntooda cabdisalaam xuseen magaalada Muqdisho jooga wuxuu ku weydiinayaa mudana madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan kala qaybsanaanta magaalada Muqdisho iyada oo dawladdu ay ka taliso laga bilaabo wadada wadnaha ilaa ex control balcad bulshada ku nool ma haystaan wax adeeg dawladeed ah xitaa amni fiican gudoomiyaasha degmooyinka goobahaas maxaad u sheegi lahayd waxaan leeyahay dawladdan hadda waxay jirtaa hal sano waxyaabaha ay ballan qaaday waxaa ka mid ah inay gaarsiiso adeega shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtiina hadda waxaan galnay qaabkii hadda waxaan galnay implementationkii ama dhaqangelintii wixii aan qorsheynaynay sanadkii hadda ahaa hadduu eebba yiraahdo waxaan gaarsiinaynaa adeega bulshada sida ugu dhaqsiyaha badan hadday noqoto iskuullo waxbarasho khaasatan farsamooyinka iyo technology-ga oo free lagu dhigto hadday noqoto rugagii caafimaadka hadday noqoto iyo hadday noqoto biyo caafimaad ah iyo jidadka inaan dib u dhisno amnigana si fiican soo celin laakiin iyada nafteeda waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan hawshaas ayna bixiyaan canshuuraha shacabka hadday bixiyaan waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan oo aan hadda awooddeeda aanan lahayn oo laga yaabo inaan u hoos fadhino ama aan u daba fadhino dawlado shisheeye inay naga kabaan inaan ka maarmi karno haddii shacabku ay iyagu qayb ka noqdaan bixinta canshuuraadka
waagaag xidig maxamed suureeye oo jooga Minneapolis waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaan weydiinayaa iibista cabdikariin qalbi dhagax muxuu madaxweynuhu ka ogyahay su-aashaasi runtii waa su-aal muhiim ah waxaan ognahay in baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabku ee arrintaas ay ku sameeyeen debate ay aada uga hadleen ay ka soo saareen documentation ayna u codeeyeen maxaa yeelay iyagu waxa weeye waa hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta markay codeeyeenna waxay gaareen go-aan waxaan aaminsanahay go-aankaas inuu yahay kama dambaysa maxamed amiin oo jarmalka jooga wuxuu leeyahay madaxweynaha waa salaamayaa waxa uu ku weydiinayaa waa maxay caqabadaha hortaagan ciidan midaysan oo soomaaliyeed oo hal meel ka amar qaata caqabadahaasi waxaan bilownay inaan ka shaqeyno ciidanka inaan isku dhafno oo aan isu keenno oo aan tababar cusub gelinno oo aan siino agabkay u baahan yihiin waxaan bilownay inaan siino mushaaharaadka oo hadda intii aan xukuumaddaani jirtay ama dowladdaani jirtay aan bixinay ciidamada annaga budgetkeena miisaaniyaddeenna maxaan ku raahdaa qaybta ka ah taasna waxay keenaysaa intaas in ciidamadaasi ay noqdaan ciidamo tayo leh si ay uga hortagaan al-shabaab cabdiraxmaan warsame cilmi muqdishuu joogaa wuxuu ku weydiinayaa dhowr su-aal balse waxaan ka soo qaadanaynaa waxa uu leeyahay madaxweynuhu markii uu kambeynka ku jiray waxa uu ballan qaaday in aysan jiri doonin waddo xiran waddooyinka magaalada muqdisho ka hadlaya maxaa ku dhacay cabdikariin waxaan leeyahay dowladdu dadaal waxay ugu jirtaa inay ilaaliso ammaanka magaalada muqdisho ilaahay baa nafta ilaaliya inaan xaqiijinno dadka soomaaliyeed ee magaalada ka shaqaysta inay xaafadooda ugu noqdaan si nabad ah marka in la kala doorto xoogaa yaroo dhib ah iyo jidxirnaansho iyo in la kala doorto qarax joogto ah insha allah hadduu ilahi ihahdo iyada naftigeeda waa ka gudbaynaa waxaanan xaqiijinaynaa in magaaladu isku furanto ammaankeedana uu kusoo noqdo hadduu eeba yidhaahdo maxamed khaliif waxa uu oo jooga maraykanka waxa uu ku leeyahay firfircooniyaa ka muuqatay inta aadan madaxweyne noqonin xaggee ka baxday madaxweynaha iyo prime ministerku waxay kala leeyihiin laba rool ayay kala leeyihiin roolka prime ministerku waa ninka hawsha xukuumadda iyo shaqada iyo fulinta iska leh meesha madaxweynaha laga rabo inuu lahaado visionka korna ka fiiriyo xaaladda sidee tahay uuna ka odayayo hawsha marka waxaan aaminsanahay inaan keenay ra-iisul wasaare wanaagsan oo shaqadiisa ka adag sida haddaan arkana in ay hayaan xukuumadda hawl wanaagsan aada ammaansan tahay waqtigaada waa kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha b b c da ee su-aalaha kusoo weydiiyey oo aada fursadda siisayna iyagana sidoo kale mahadooda waan kusoo gaarsiinaynaa aada ammaansan waa mahadsanta daawadayaal aad ayaad ugu mahadsan tihiin la socoshada barnaamijkan waxaad dib uga daawan doontaan ama aad ka daawan kartaan barta facebooka ay b b c soomaaliya ku leedahay waan idinkaga mahad celinaynaa la socoshada war fiican waay